fiidiyowga like noo saar channelkeena haddaadan hore subscribe saar dambalelkan furo. Waxaa jiray nin ganacsade ahaa. Ninkaas waxa uu qabay xaas, waxa ayna u haysay gabar. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu isaga oo xafiiskiisa iska fadhiya patroonigiisa ku soo yiri magaalada ka soo tag, halkan ku soo wareeg si aad uga shaqaysato magaalada kale. Xaaskiisa ayuu u yimid, waxa uu ku yiri waa aan wareegaynaa, waxa aan aadaynaa magaalo kale ee isdiyaariya. Xaaskiisii ayadoo amarkiisa diidi jirin ayaa waxa ay ku tiri waa aan ku raacaynaa, waana guuraynaa, waana isdiyaarinaynaa, laakiin xaggeen u soconnaa? Wuxuu yiri magaalo ayaan u soconnaa, shaqo kale ayaan ka helay. Waa ay israaceen isaga iyo gabadhiisii iyo xaaskiisii. Ayagoo waddada ku jira oo safar ah, waqtigoodii ayay qaateen, waxa ayna imaadeen gurigii uga kiraysnaa magaaladii ay imaanayeen. Gurigaas waxaa deganaa ruuxaan ama waxa loo yaqaan reer aakhiraad. Islaantiisii oo dhoola caddaynaysa ayaa waxa ay ku tiri kan miyaa gurigii aan degi lahayn? Isagu waxa uu ku yiri haa, waa guriga aan degi lahayn. Cabbaar ka bacdi waxa ay dejiyeen alaabtii ay wateen, gurigii ayayna isku dayeen in ay fariistaan amaba harsadaan. Cabbaar ka bacdi markii ay nasatay, islaantii ayaa ninkeedii u timid, waxa ayna la fariisatay fadhiga. Ayagoo cabbaar wada sheekaysanaya ayaa waxaa ninkii qabatay baahi, waxa uuna yiri jikada inoo aad, inoona samee casho. Markii ay jikadii aaday oo ay istiri albaabkiisa ayaaba albaabkii waa uu xirnaa. Gurigana waxaa ku degnaa ruuxaan amaba reer aakhiraad. Waa ay soo socotay islaantii, waxa ayna isku dayday in ay furto albaabkii oo xirnaa. Waxa uuna gurigu ahaa guri laga guuray muddo 20 sano ah amaba kaba badanba. Waxa uuna u ekaa guri karaami ah oo mar horeba jiray. Albaabkii ayayba jebisay, waxa ayna la dhacday gudbe. Nasiib darro albaabkii waa uu u furmi waayay. Kadib waxay u timid waxa ayna ku tiri albaabka ma furmayo ee maxaan ku sameeyaa? Isaga ma uusan dhihin waan jebinaynaa ee wuu iska seexday. Cabbaar marka ay habeennimadii hurdeen ayaa waxaa dhalatay subaxnimo. Subaxdii naagtii waxay isku dayday inay jikada aado ninkeedii iyadoo rabta in ay wax u samayso. Jikadii ayay aaday, laakiin ninkeeda waa uu labistay, waxa uuna raacay gaarigiisii halkuu aaday shaqadiisii. Islaantii waxa ay furtay jikadii, waxa ayna rabtay inay samayso qado. Waxay timaaday jikada, waa ayna furtay, waxayna ku samaysanaysay cunno, ninkeedana rabtay inay u sii diyaariso. Waxa ayna aragtay wax tacajab iyo la yaab ku noqday. Ayada oo cabbaar fakaraysa ayaa waxa ay tiri ninkeedii yaa macsalaameeyey, yaase iridda furay. Jikada waxay soo baxday iyadoo albaabku furan yahay. Su'aalahaas oo dhan markii ay isweydiisay, waxaa guriga uga daba maray naag iyadoo isku soo eekaysiinaysa ayada. Balse cabbaar ka bacdi waxaa naagtii ku dhacay si degdeg ah in jikada inta loogu soo galo laga nixiyo amaba ay dareento shanqar qof aysan arkayninba. Cabbaar ka bacdi naagtii waxaa qabsatay arrin ay la yaabtay. Ayada keliya maahay uu la yaabay ninkeedii. Markii uu ninkeedii yaabay oo yimi ayuu wuxuu arkay iyada oo legdan amaba suuxday. Balse cabbaar ka bacdi marka uu yiri maxaa kugu dhacay, waxay ugu jawaabtay amaba
ugu falcelisay sida tan. Waxay tiri waxaa igu soo dhacay digsi waana laygu qayliyey, bartii ayaanan aniguna ku dhacay. Ayadoo intii ku leh ayuu ninkii warkeedii beeniyey. Waxa uu yiri waxaas wax jira maba ahaba. Muddo kadib, muran ka bacdi markii ay iskhilaafsadeen, gabadhii habeenkii oo dhan waa ay baqaysay ayadu. Marka uu ninkeedii beeniyey warkii ay u sheegtay, habeenkii oo dhan way baqaysay. Ninkii wuxuu iska aaday shaqadiisii isagoo arrintii isweydiinayay ma run baa mise waa been. Gurigiisa ayuuba isaga soo laabtay, fadhigiisa ayuu iska fadhiyey, wax ayuu iska akhrisanayay. Waxa uu isku dayay hal mar in uu buuggii iska laabo u soo koro guriga dabaqiisa sare. Cabbaar kadibna waxa uu iska laabay buuggii, wuxuuna rabay inuu koro jaranjarta. Markii uu jaranjartii soo raacay ayuu wuxuu maqlay dhaqdhaqaaq iyo qaylo iyo socsocod. Intaba goortuu maqlay waa uu istaagay, wuuna naxay. Wuxuuna isweydiiyey hadalladii naagtiisii ma run baa mise waa been. Socodkiisii ayuu iska sii watay, waxa uuna rabay inuu aado qolkiisii oo mugdi ahaa, isaga oo weli beeninaya naagtiisii warkii ay dhahaysay. Balse cabbaar marka uu socday, waxa uu la kulmay arrintii ka daran oo kasii cabsi badan. Waa la qabtay ninkii, waxaana ka hor yimid wax aanan loo adkeysan karin fiirintiisa. Inta uu qabtay ayuuna ceejiyey ninkii. Xoog ayuu u ceejiyey, kor ayuuna u qaaday. Ninkiina halkii ayuu ku geeriyooday. Sheekadiina halkan ayay noogu dhammaatay. La soco sheekooyinkeena dambe.